magaaladii Dubai ayaa hulcaysa iyadoo imaaraadku ay sheegeen in hadda ay ku jiraan xaalad halisa kacaanka Iran ayaa ku dhawaaqay goordhaweed inuu gantaale aan inaba aan caadi ahayn u adeegsaday weerarkiisa dalka Imaaraadka Carabta lamid sidaas oo kale Tel Aviv qaybo badan oo kamid ah ayaa iyana waxa ku hoobanaya dhimbilo laga soo tuurayo Iran kuwaas oo burburiyay qaybo badan oo magaalada Tel Aviv kamid ah xaaladda bariga dhexe waxa ay gashay jahawareer iyadoo Iran ay isticmaalayso kaarta inaba aan caadi ahayn oo ah haddii aan gubanayo kaligii ololi maayo waa in bariga dhexe oo dhan uu gubtaa iyo cid kasta oo gaashaan u ah Mareykanka iyo Israa'iil waa kaarta halis oo isticmaalayaan kacaanka Iran taas oo qalbi jab ku ridaysa kooxda duulaanka ku soo qaaday Iran ee isgarabsanaya xaaladaha halisa ayaa ka soo kordhaya bariga dhexe iyadoo wararka ka imaanaya Iran iyo dalalka kale ee gobolku ay yihiin daqiiqada ka dambaysa kuwa isu soo taraya magaalada Dubai ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta qaybo badan oo kamid ah ayaa la bartilmaameedsaday iyadoo oo guryo iyo dhismayaal waaweyn oo magaaladaasi ku yilay oo soo gaaray burbur xoog leh gantaalo laga soo tuurayo Iran ayaana daqiiqad kasta ku hoobanaya Dubai tan waxay Iran ku sheegtay inay tahay argoosi maadaama ay uga digtay dalalka gobolka in loo soo isticmaalo lana soo maro weerarka Iran loo soo maro talaabadan ayay sidoo kale kacaanka Iran ay ku sheegeen mid argoosi ah iyadoo dawladaha khaliijku ay sheegayaan iyana inay bixinayaan jawaabo degdeg ah oo ay uga argudanayaan kacaanka Iran ee weerarka ku soo qaada Mareykanka ilaa iyo iminka ma bixinayo faahfaahino ku saabsan weerarkan marka laga reebo madaxweyne Trump oo goor sii horeysay hadlay isaga oo sheegay in sababaha ugu waaweyn ee Iran ay u bartilmaameedsanayaan ay tahay inay ahayd Iran 40kii sano ee la soo dhaafay cadawga ugu weyn ee bariga dhexe isla markaana ay hortaagneed dana badan oo Mareykanku uu ka lahaa gobolku marwa fertility center waa xarun caafimaad oo soo celisay farxaddii iyo rajadii qoysas badan oo Soomaaliyeed kuwaasi oo qaarkood ku dhawaa inay kala tagaan dhalmala'aan darteed halkan waxaa lagu daweeyaa dhalmala'aanta waxaa lagu dhisaa mustaqbal marwa waa furaha qoyskaaga berri soo booqo ama nagala soo xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda sidoo kalena Mareykanku waxa uu sheegay ama madaxweyne Trump uu intaas uu ku daray in uu diyaar u yahay in haddii Iran ay isdiibto isla markaana ay ogolaato danaha Mareykanka inuu dagaalkan ama weerarkan ay soo qaadeen uu joojiyo waxa jira warar soo baxay oo aan ilaa iyo iminka la xaqiijin oo sheegaya in wasiirkii difaaca ee Iran lagu dilay duqeyntii saaka aroortii ka dhacday magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran halkaas oo lagu bartilmaameedsaday xarumo dawladeed oo muhiim ah oo uu ku jiro guriga Ayatollah Ali Khamenei faahfaahinada ku saabsan weeraradan waa kuwa is soo taraya sidoo kale waxa la duqeeyay saldhigii ay ku lahaayeen dalka Kuwait NATO ama midowga NATO dalalka ku midoobay ay ku lahaayeen samafalka waalidku waa waajib diiniya waxaana lagu kasbadaa raalli ahaansha Allah subhanahu wa ta'ala waxaana lagu galaa jannada haddaba ma doontaa waalidkaaga oo geeriyooday ama sariiriyaal ah in aad u soo cumraysid taasi oo ay ka caawinayaan culimo dhulka barakaysan ku sugan iyagoo kula wadaagi doona muuqaalo cadayn waa waalidka in lagaaga soo cumreeyay waxaanay kuu soo diri doonaan 3 muuqaal haddaba fursadan uga faa'iidee waalidka iyo cid kasta oo aad la jeceshahay in lagaaga soo cumreeyo muuqaalada waxa lagugu soo diri doonaa barta WhatsApp-ka haddaba wixii faahfaahin inta dheer nagala soo numberka shaashada idinka muuqda bartilmaameedyada Iranna oo kuwa muuqda sidoo kale xarun sirdoonka Iran ay ku lahaayeen magaalada Tel Aviv ayaa gibi ahaanba burburtay iyada oo dad badan oo kamida ay halkaasi ka carareen waxa xusid mudan in dawladda Imaaraadka Carabtu ay iyana ka daadgureysay dadkii shacabka ahaa daarta ugu dheer Dubai ee la yiraahdo Burj Khalifa halkaas oo ay ku yaalaan guryo aad u fara badan dadkii shacabka ay saarna ayaa laga daadguriyay iyadoo laga baqdin qabo in gantaalada Iran ka imaanaya ay haleelaan wixii soo kordho daqiiqad kasta halkaan aan kuula soo wadaagaya isha ku ay bugaygan Axmed Saciid Axmed muuqaalka laga noo saaro oo si share gareeyo ma santiin